Hello. Cashirkan waa cashirkeen noo socdo oo ahaa learn how to use a window PowerShell ICU command. Cashirkan maanta waxaan uga hadlaynaa cashir kale oo la yiraahdo file system provider. File system provider waa isagana waa commandlet oo la mid ah commandletkii aan ka soo hadalnay commandkii window PowerShell ICU command. Anoo aan ku dheeraan halkaa ayaan tegayaa waxaan la soo baxayaa sawirkeesan note marka ugu horeyso horta waxaan ka hadalnay cashirkii oo cashirka hore wuxuu ahaa creating PS driver marka aad create garaysid meesha aad ka heli kartid driverka aad create garaysid ama itemada ugu muhiimsan halkaa arkaysaan get location waa ka fiirin kartaa set location new items copy items rename items set items clear items. This is a really PowerShell commandletka weeyaan iyo kuwo badan aan soo qeexi karin hadda haddii aad baratid ama aad rabtid inaad baratid sida loo qoro codinka ama scriptka loo qoro window PowerShell waa inaad kumaanadan inaad barato weeyaan ayagoo muhiim ah. haddaba cashirkan maanta waxaa weeye the file system provider. File system provider maxaa loola jeedaa? File system provider asagana waa significant ama muhiim kale code kale oo muhiim ah. haddaa aragtid waxaa waaye directory weeyaan. haddii aragtid slash waxaa loo soo gaabiyey waa item file weeyaan. haddii aragtid letter a waa archive bit set. haddii aragtid letter c ama letter r haddaa aragtid raalli ka noqo waa only read weeyaan. waxaa weeye privilege ama right uma lihid waa only read weeyaan. haddii aragtid letter h ama that h haddaa aragtid ayadana waxaa waaye waa hiding file wax la yiraahdo weeyaan ama folder aad arki karin. haddii aad aragtid that s haddaa aragtid sidoo kale waxa weeye waa system file weeyaan. haddaba let's get into maxaan ula jeedaa halkaas ayaan la soo baxayaa window PowerShell ICU command sawirkeesan markaan la soo baxo halkan ayaan ku taab garanayaa ama ku qorayaa get child item ayaan ku qorayaa. child item markaan ku qoro oo aan ka soo hadalnay cashiradeenii hore enter ayaan taabanayaa. marka aan taabto waa arkaysaa modelka loola jeedo DR-ka waa arkaysaa. haddii aragtid waa arkaysaa DR-ka sidoo kale waa directed read only weeyaan. haddaan hoos ugu socdo letter a oo loola jeedo only archive ama PS1 oo archiveka fileka a create garaysay. halkaa uma jeedno hiding file ama system file. halkaa ayaan ku qoranayaa aan ku taab garanayaa get slash child item ayaan leeyahay. markaan dhaho space aan siinaa slash ayaan leeyahay forest ayaan ku qorayaa. halkaas saddexda xaraf oo ugu horeyso markaan ku qoro waa arkaysaa enter ayaan taabanayaa. haddii aan kor ugu socdo waxay ku kala duwan yihiin waa arkaysaa halkaas oo ku qoran tahay loo soo gaabiyey HSL-ka waxa weeye waa hiring system file. halkaa haddaan taabto sidoo kale ayadana waa arkaysaa read only ay tahay muusiga ama hadduu wax kugu jiro. halkaa waa arkaysaa ayadana file waxa weeyaan archive oo hiring ah. haddaba annagoon ku dheeraan cashirkeena maanta wuxuu ka saabsan yahay intaasuu ka saabsanaa waa the file system provider. haddii aad galaaskan ku cusubtahay ama galaaska ka mid tahay subscribe-ka taabo gablaalkana furo si aysan cashiradu kuu dhaafin. waa inoo cashirkeena dambe.